dowladda maxaa u priority xukuumadda oo waxaan rajaynayaa in fariimahanaga already waa la helay shacabkuna way ogyihiin annaga iyo shacabka waxaan moodaa inaan inta markaan aan dareemayo inaan isku page kana maxaa jira markii hore aan isku page ahayna waa isla joognay dad oo annagu maanaan maqnayn marka isku wax baan dareemaynay annaga oo ka duulayna markaan shaha wada cabaynay meesha isla fadhinay wixii aan dareemaynay iyo sidii waxaan priority u arkaynay uma rabnaa inaan wixii program dowladeed ka dhigno oo aan ka dhigno marka aniga waxaan aaminsanahay anaga wax badan waxaan kaga bedelaan doonaa xukuumadii naga horreeyay waxa taabanaya qofka Soomaaliyeed sida saxda u taabanaya caadiga inaan rabno inaan program ka dhigno marka anaga numberka koowaad waxaa noo ah in aan abuurno waxaan dhihi karno waa political reconciliation oo deganaansho siyaasadeed si loo helo oo siyaasaddu hadday kugu kacsan tahay wax heshiis lagama samayn kartid marka waa in si heshiis loo helo oo bulshadu ay heshiis u noqoto waa in siyaasiyiintu ay heshiiyaan boon waxaan ognahay Soomaalida waxa halkaas geeyay oo isku diray oo kala dilay oo isku dilay waa siyaasad iyo siyaasi marka waxaan u baahanahay inaan helno siyaasad degan oo taasna asalkeedu yahay in haddii la tarjumo ay noqonayso hadda waxa taagan marba meel bay soo maraysay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe waa inay heshiis yihiin hadday kuwaas heshiis yihiin siyaasadaha kale waa khilaafaadku waa wax afkaar iyo ku dhismaaya wax kale laakiin si aynan dalku u kala xirxirmin oo decisionku uusan u kala xirxirmin oo aan meel jahwareer siyaasadeed loo gelin waxaan u baahannahay inaan annaga iyo dowlad goboleedu aan heshiisnahay marka waa in kalsooni laga dhex sameeyo madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si madax isku kalsoon loo helo Soomaalidu markaas ay wada socon kartaa priority noo yahay in si loo helo political stability wadankan uu helo deganaansho qodobka labaad oo muhiimka ah oo dowladdu waxa waaye waa sugidda amniga waa amni isku waafaqsanahay inaan waxba la samayn karin haddaan amni la samayn horumarka marka laga hadlaayo horumar hadduu yahay dhaqaalo yahay kaabadihii sida kaabadihii dhaqaalaha la dhiso jidadkii buuntooyinkii iyo wixii la midka ahaa ma la samayn karaa haddaan amni jirin lama samayn karo bulshada marka nidaamka security-ga marka waa inaan consensus helo oo dadkeena isu keeno si political stability loo helo iyo in security-ga aan sino si security-ga qaabkii loo sugi jiray si loo sheegi jiray si aan ka ahayn approach kale inaan u galno san security oo oo la wada leeyahay oo dawladda ay leedahay annaga xukuumaddan hadii la yiraahdo marka la soo dhiso waxaan ballan qaadaynaa inay la timaado program waxa iska duulay oo lagu shaqeyn karo oo bulshadii iyo xukuumaddii ay wada leeyihiin oo laga wada shaqeeyo ganacsatada hadday shaqeeyaan hadday culimadeenu shaqeeyaan madaxda iyo civil society hay'adaha kala duwan haddii ay wada shaqeeyaan oo dee aadka u faraha badan kuwa aqoonta leh miidiyaha leh cid walba leh dhakhaatiir leh haddii ay intaas wada shaqeeyaan waxaan hubaa in amnigeena aan ku sugan karno muddo kooban waliba muddo aad u kooban aan ku sugan karno waxaan aaminsanahay inaan muddo kooban usoo jeedsan karno development-ki noocyadiisa kala duwana inaan dibdib kala usoo economic reforms la sii waday dawladdu waday waa sii wadayna waliba sii xog saari doonaa waxaan isku daynaa in musuqmaasuqa la dirirno oo haddii la yiraahdo aan ka nadiifino hay'adaha dawladda inta la kari karo si gradual ah in looga nadiifiyo haddii la yiraahdo intaas marka waxaan rabnaa in amniga haddaan suganno dan aan dawladnimadii dhisidii ayadaaba iman waxaan aniga aaminsanahay bulshadeenu waa bulsho aad u firfircoon hadday amni hesho ayadaa dhisan